baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyay lixaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay khaasatan aan wax ka sii raahdo baarlamaankan tobnaad anigu waxaan aaminsanahay inaad ka duwan tihiin kii sagaalaad iyo sideedaad iyo kuwii ka horreeyay waxaa uga duwan tihiin runtii waxaa qayb ka tihiin ama aad hormood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dowladnimo oo ahayd wax horey loo waayey oo dib noo dhigay waxaad bannaanka ka istaagteen wax alla wixii khilaaf ah dowladnimo sideedu waa iska crisis oo waxa weeye wax la manage gareeyo hadba dhibkii yimaada ileen waxaa la maamulayaa 15 iyo 20 milyan dad gaaraye oo weliba xaalad adag soo maray oo 30 sano dhib ah soo maray duruufo badan ay jiraan marka waa imaan annagana dee Soomaaliyeedna waa u sumaysannahayba khilaaf iyo iska horimaad iyo murmo waa u sumaysannahay iyo qof walba inuu sidiisa u boqran yahay waa u sumaysannahay xaqiiqatan waxay ka fogaadeen wax alla wixii khilaaf ahaa waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dowladnimada iyo ama dib u dhac u keeni karay waxaad arkaysaan oo leeyahay waa la qabtay waxay ka ahaayeen hormood ayay ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen la'aantood deganaashahooda iyo xasiloonadooda iyo wada shaqayn la'aantoodana wixii la qabtay laba qabteen marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin tan labaad wada shaqaynta dowladda dhexdeeda ah dhaqankii siyaasadeed oo hore waa bedelnay oo waxaan ku bedelnay wada shaqayn waa sax perfect ma jiro ilaahay unbaa yaa dhan bini aadan baan nahay khaldaad waa iska imaan dhib waa iska imaan karaa laakiin waxaan ku dadaalnay in aan dhexdeena wada shaqayno in madaxtooyada iyo golaha wasiiradu ay wada shaqeeyaan golaha wasiirada iyo labada aqal ay wada shaqeeyaan dowlad ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed oo iyagu sovereignty ah iyagu dowladnimadii iska leh inaan wada shaqeyno waxa weeye wada shaqeyntaasna qayb weyn waxa ka ah golaha labada aqal ya qayb weyn ka ah tan saddexaad in aan kala madax banaanahay waa cadeynay in hay'ad walba oo dastuuri ah hay'adaha kale ee ka madax banaan yihiin way muuqataa oo wax isku dhex jira ma jiraan oo nala arki maayo waa sax loobi waa jira laakiin waxaan u dhaafnay golaha wasiiradu inay hawshooda qabsadaan labada aqalna hawshooda ay qabsadaan taas xaqiiqatan waa wax runtii nagu cusub waxay keentay marka in aan shuruuc badan ay ansixiyaan wada shaqayntaas waa saad maqlayseen 22 sharci yay ansixiyeen 20 yay ansixiyeen laba kalena waa la yaala macnaheedu waxay tahay juhdigay galiyeen iyo shaqaday qabteen waa markaan leeyahay lamid ma aha kuwii ka horreeyay waana ku mahadsan yihiin shuruucdaas waxaa ka mid ah marka kii maanta ay ansixiyeen oo ahaa shalay oo ahaa kii doorashada sharciga doorashada aad iyo aad iyo runtii ugu mahadsan yihiin annagu waxaan filaynay in muddo dheer ay qaadanayso bacdamaa waqtiyadan marka la soo gaaro xoogaa ay timaado iskhilaafaad iyo cudurdaarro fara badan laakiin runtii aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa sharcigaasna wuxuu ka bilowday heshiiskii baydhabo ayuu ka bilowday baydhabo markaan isugu tagnay baydhabo agreement dowlad goboleedyadii iyo annaga markaan halkaas ugu tagnay iyadoo la leeyahay waxba lagama soo saarayo oo sida uu sheegay Duqa Cabdulle inta badan dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta ah lagama filo inay wax isku raacaan aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo sameyn lahaa oo qof walba uu saxiixay uu committed uu ku noqday qof walba uu saxiixay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraadka iyadana inaan isku raacnay oo aan wada siixnay
waxay ay saxiix aan wada saxiixnay in doorashada 2020ka iyo 2021 ay u dhacdo qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awoodooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan wixii ka dambeeyay marka waxa iska leh diyaarinteeda iyo ka shaqaynteeda xukuumadda iyo labada gole ee baarlamaanka yaa iska leh annagu waxaan soo diyaarinay marka midkii ugu sahlanaa iyo xukuumad soo diyaarisay oo aan islahayn wuxuu midayn karaa dalka oo single constituency la yiraahdaa oo haddaa tahay xildhibaan inaad matalayso dalka oo dhan aad matalayso codka Kismaayo aad ka hesho uu yahay cod aad ka heshay Baydhabo kan Baydhabo aad ka heshay uu yahay mid Boosaaso aad ka heshay iyo guud ahaan dalka oo dhan iyadoon cidna la siinin special status aan la siinin